Salaamullaahi calaykum asxaabteyda qaaliga ah kusoo dhawaada YouTube channelkeena waa walaashin Raxma Diamond. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe noo saar. Haddii aad hore noola joogtana waan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. Maanta hadduu Allah yiraahdo waxaan ka hadlaynaa bisha koowaad dhallaanka waxyaabaha aad ku arki karto sidoo kale waxyaabaha laga rabo in aad sameyso ayaan idinla wadaagayaa hadduu Allah raali ka noqdo. Bisha koowaad ee ugu horeysa ee uu dhallaanka adduunka imaado waa bisha uu korinshihiisa zaid u soconayo si xawaare leh ayuu u korayaa. Sidoo kale dhirirka miisaanka ayadan wax badan ayaa ku darsoomaya bishan ugu horeyso. Marka uu dhalanayo miisaanka dhallaanka sida normalka waxaa laga rabaa in uu yahay 3 kiilo iyo bar. Bisha koowaad waxaa ku darsamayo wax ku dhow 1 kiilo. Sidoo kale dhirirka dhallaanka marka uu dhalanayo waxaa laga rabaa normalkiisa inuu yahay 50 centimeter. Bisha koowaadna waxaa ku darsamaya 5 centimeter waxaa laga rabaa inuu noqdo 55 centimeter. Korinshihiisa ama dhallaanka korinshihiisa waxay ku xiran tahay waxyaabaha uu qaadanayo. Cunuga hadduu yahay cunug la nuujiyo oo cabo caanaha hooyada wuu ka korinsho badan yahay cunuga caanaha formulada loo yaqaano ama gasaca isticmaalo oo la siiyo. Waxaa mar walba korinshihiisa uu speed ku socdaa xawaare ku socdaa cunuga caanaha hooyada caba. Feedingka ama nuujinta hooyada waxaa loogu talagalay in ay nuujiso 24 saacba 8 waqti. Sidoo kale waxaa la doonayaa 2 saac ama 3 saac kastaba inay hal mar hooyada nuujiso. Halkii mar uu caano cabayo ama hooyada ay nuujineysana waxaa la rabaa in ay qaadato 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo inta u dhaxeyso si uu caanaha uga dhargo si buuxda. Dhanka kaadida ama urination-kana waxaa la rabaa cunuga in uu sameeyo ama maalinka cafaayada laga bedelo ugu yaraan 6 mar ayadoo waliba qoyan. Haddii cafaayada qalalan tahay waxay ka dhigan tahay cunuga inuu caanaha si fiican uga dhargin. Waxaa la doonayaa 6 mar ilaa 5 mar inta u dhaxeyso in cafaayada aad ka bedesho waliba ayada oo qoyan. Saxarada ama istuulka ayadana waxaa la rabaa hal mar wixii ka badan maalintii inuu saxaroodo. Hadduu cunug yahay cunug hooyada ay nuujinayso oo caanaha ay siinayso ilmaha la nuujiyo badanaa saxaradooda aad ayay u jilcan tahay. waxaa la doonayaa hal mar maalintii inuu saxaroodo iyo wixii ka badan 2 mar ilaa 3 mar waa normal maalintii. Cunuga haddii la siiyo caanaha formulada ama gasaca saxaradiisa way adkaanaysaa. Laakiin cunuga la nuujiyo mar walba way jilcan tahay. Marmarka qaar waxaa dhacda in dhallaanka yarka ee markaa dhashay uusan saxaroonin muddo 1 maalin 2 maalin ilaa 3 maalin in aadan ku arkin wax saxaro ah. Waa normal waa caadi. Laakiin 3 maalin wixii ka badan waxaa lagula talinayaa hooyada in ay la xiriirto dhakhtar si ay u ogaato cilada meesha ay ka jirto. Bisha koowaad dhallaanka lama uusan qabsanin weli noloshan wuxuu ka soo baxaa meel huur ah. Waxaa dhici karto in maalintii uu hurdo habeenkiina uu soo jeedo oo hooyada inta badan way ku dhafartaa bisha koowaad. Sidoo kale oohintiisa aad ayay u badan tahay waayo baahi joogta ayaa qabanaysa. Sidoo kale bishan koowaad waxaa la doonayaa hooyada inay u sameyso dhallaanka yarka ah wax loo yaqaan tummy time oo ka caawinaya cunuga inuu noqdo mid adag. Sidoo kalena qoorta cishan kara. Waayo hadduusan cunuga qoorta cishan karin aad ayay u adag tahay hadhow inuu dhaqsiyo fadhiisto ama uu bilaabo wax loo yaqaano gurguurashada. Marka hore waa in loo sameeyo tummy time. taas oo ah dhallaanka yarka in xabadka dhulka loo dhigo si qoorta uu kor ugu soo qaado in uu adkaato. Tummy time waxaa dhallaanka loo bilaabi karaa isagoo yar gaar ahaan marka uu gaaro 2 isbuuc waa oo waa loo bilaabi karaa si uu ula sii qabsado. Sidoo kale bisha koowaad dhallaanka waxaa lagu arkayaa calool xanuun ziyaado ah waxaana la doonayaa hooyada inay u sameyso massage ama jimicsi si
hawada gasha caloosha ay banaanka uga baxdo, waayo dhalaanka marka uu yaryahay lamuusan qabsan caanaha iyo cuntooyinka, waxayna taas keenaysaa in caloosha ay xanuunto. hadduu Allah yiraahdo mowduuc gooni ayaan uga soo hadli doonaa wax qaabka loo dabiyo ama loo daaweeyo, sida looga hortago iyo waxyaabaha keena intaba calool xanuunka ku dhaca dhalaanka marka ay yar yihiin. Sidoo kale bishan koowaad qubeyska ilmaha loo sameynayo waxay ku xiran tahay wadanka aad joogtid iyo cimilada, haddii cimilada tahay mid qabow iyo haddii ay tahay mid kuleel. hooyada ayada ayaa garan karta ama ogaan karta hadba xaalada dhalaankeeda iyo inuu u baahan yahay. hadduusan u baahnayn kaliya waad u tirtiri kartaa oo waad uga maarmaysaa qubeyska. sidoo kale dhalaanka u samee massage adoo isticmaalaya waxaa aad wanaagsan inaad ugu massage gareysto saliida caadiga ee saliid macsarada ee Soomaalida u taqaano ayaa wanaagsan inaad ugu massage gareyso. massage-kaas aad u sameynaysa dhalaanka waxay ka caawinaysaa number 1 in lafiis ay u adkaadaan. sidoo kale waxay ka caawinaysaa massage-ka caloosha kale u sameynaysid in hawada caloosha gashay ay banaanka uga soo baxdo. massage-ka dhalaanka marka uu yaryahay gaar ahaan bisha koowaad aad ayay ugu fiican tahay. asbuuca koowaad ee ugu horeyso waxaad jeegareysaa dhalaanka saxaradiisa iyo kaadidiisa inay normal tahay, waayo ilmaha qaar oo waxaa jira ku dhashaan ayadoo xiran tahay saxarada meesha ay kasoo bixisay. hooyooyinka qaar arintaas way ku wareeraan ama way iska fududeystaan. waxaa wanaagsan in asbuuca ugu horeeyo aad jeegareysid dhalaanka. sidoo kale xubno walba oo jirkiisa kamida in aad qiimeysid. waxaa kaloo hooyada lagula talinayaa xudunta dhalaanka in ayadana ay qiimeyso. ilmo qaar oo waxaa jiro xudunta ay casaato ama ay infection qaado. waxaa wanaagsan in hooyada ay qiimeyso. waxaa jirto goojo ama boomaato loo isticmaalo oo qalajiya ah in marka ugu horeyso ama isbuucaas koowaad hooyada ay isticmaasho. haddii ay ku aragto wax infection ama wax kaloo xanuun ah sida inay casaatay oo kale in ay la xiriirto dhaqtar. ugu dambeyn xiliyadan ama bishan koowaad waxaa hooyada lagula talinayaa xaalad walba sida oohinta, hargabka, qandho, wax walba ay ku aragto dhalaanka in ay ugu roonaato nuujinta naaska hooyada, waayo isaga ayaa wax walba uga filan. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe noo saar. mahadsanid.